Assalaamu calaykum. Digaaga dabiiciga waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ugu horeysa in laga helo borotiinno badan, kaasoo muhiim u ah koriimada murqaha iyo seedaha bini'aadamka. Waxaa kaloo borotiinka digaaga laga helo ku badan nooca loo yaqaano tryptophan oo ah mid waxtar u leh niyadda qofka, waxaana la arkay inuu hoos u dhigo diiqada iyo walwalka maadaama uu borotiinkaasi sare u qaado dheecaanka ay maskaxdu soo dayso ee loo yaqaano serotonin. Sidaa daraaddeed waxaaba jirta odhaah odhanaysa cab maraq digaag haddii aad walwalsan tahay. borotiinada kale ee digaaga laga helo waxaa ka mid ah nooca loo yaqaano homocysteine oo muhiim u ah caafimaadka wadnaha. Sidoo kale waxaa kaloo hilibka digaaga laga helaa maadada loo yaqaano phosphorus oo faa'iido ugu jirta ilkaha iyo lafaha bini'aadamka, iyo weliba shaqada beerka iyo keliyaha iyo neerfaha. Waxaa kaloo digaaga laga helaa maadada loo yaqaano selenium oo muhiim u ah shaqaynta hormoonada jidhka, gaar ahaan kuwa uu soo daayo qanjirka dhuunta ee loo yaqaano thyroidka. Waxaa kaloo hilibka digaaga ka buuxa fitamiinka nooca loo yaqaano B6 kaasoo muhiim u ah caafimaadka xididada jidhka. Waxaa kaloo ku jira hilibka digaaga fitamiinka loo yaqaano niacin oo Alle ka dhigay mid ka hortaga kansarka hab dabiiciya. Dhinaca kalena daawada hilibka digaaga waxaa ka buuxa oo laga helaa maadooyinka kala ah retinol, carotene iyo lycopene oo kulligood laga wada keenay fitamiin A kaasoo muhiim u ah caafimaadka indhaha. Sidoo kalena digaaga waxaa laga helaa fitamiin B2 oo muhiim u ah caafimaadka maqaarka, waxaanu ka hortaga dildilaaca maqaarka iyo dhaawac ku yimaada faruuryaha ama dibnaha. Intaa kadib daawada digniin, digaaga la warshadeeyey ama la buufiyey ama la kiimikeeyey uma roona caafimaadka. Tayada nafaqo ee laga helaana la mid ma aha digaaga dabiiciga. Waxaa kaloo la xaqiijiyey digaaga gacan ku rimiska inay gudbin karaan cudurrada faafa qaar badan oo ka mid ah.